tacadiyada ay la kulmaan haweenka meel walbo ay dunida kaga sugan yihiin ma ahan wax lagu soo koobi karo daqiiqado, balse wadamada qaar markii ay la kulmaan xadgudubyada oo ay gudbiyaan cabashadooda waxa ay helaan garsoor caadil ah, balse wadamada qaar oo aysan haweenka kor u hadli karin ayay ka jirtaa dhibaatada ugu badan. Dalka Afghanistan oo ka mid ah dalalka islaamka ah ee ku dhaqma diinta islaamka ayaa waxa aad uga dhaca tacadiyada dumarka, waxaana lagu tilmaamaa mid ka mid ah wadamada ugu xun ee ay dumar ku noolaadaan. Haweenka Afghanistan ayaa tacadiyada galmada la kulma marka ay shaqooyin u doontaan xafiisyada dowladda, iyadoona lagu xujeeyo in ay la seexdaan qofka ay shaqada u doontaan, balse baaritaano qarsoon oo ay BBC-da samaysay ayaa lagu wareystay haween si wanaagsan u sharaxaya tacadiyada galmo ee ka dhex jira xafiisyada dowladda. Guri ku yaala buuraleyda duleedka magaalada Kabul waxa ay BBC-du kula kulantay haweeney horey uga tirsanayd shaqaalaha dowladda Afghanistan, waxaana haatan ay doonaysaa in uu caalamku ogaado sheekada dhabta ah ee ka jirta xafiisyada dowladda. Waxay sheegtay in ninkii hore madaxda u ahaa oo ah wasiir sare oo ka tirsan dowladda uu marar badan ku sameeyey xadgudubyo dhinaca jirka ah. Maalin maalmaha ka mid ahna markii uu xafiiska ku arkay uu isku dayay in uu si toos ah u weeraro. Haweeneydan horey uga tirsanayd shaqaalaha dowladda Afghanistan waxay sheegtay in 2 haween oo kale ay u sheegeen in isla wasiirkaas qudhiisa uu kufsi u geystay. Sidoo kale waxaa jira tiro haween ah oo ka cabanaya isla arrintaasi. Haddaba waxaa jira dalal kale oo ay arrintaasi ka jirto, balse weli aysan soo shaac bixin. Soomaaliya ayaa la sheegaa in ay ku jirto. Xafiisyada qaar ee ay u shaqo doontaan haweenka ayaa lagu xujeeyaa in ay aqbalaan wax walba oo uu weydiisto qofka ay shaqada ka doonayaan. Afghanistan mar walba waxay si joogto ah safka hore ugu jirtaa dalalka ugu xun caalamka ee ay haweenka ku noolaadaan. Sanadii 2018 qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin ay ku faahfaahisay sida haweenka tacadiyada loo geysto loogu qasbo in ay ka noqdaan dacwadda ay diiwaangeliyeen.